YouTube-ka waxaan ku soo biiray sanadii 2022 Agoosto taariikhda markay ahayd 12. Maanta oo la joogo sanada 2024 waxaan xaqiijiyay guushaydii ugu horeysay oo ahayd in aan gaaro 1000 subscribers. Haddaba maanta muuqaalkeenan waxaan ugu hadli doonaa maxaa iga hor dhimaaday oo caqabada ahaa intii aan ku guda jiray YouTube-ka. Markii aan ku soo biiray YouTube-ka ee aan soo gelinayay muuqaalkayga ugu horeeyay YouTube-ka waxay ahayd taariikh 17 bishii Agoosto 2022. Muuqaalkii ugu horeeyay ee aan soo geliyay YouTube-ka waxaan uga hadlayay sida loo sameeyo ama sida sawirada loo gisto Gmail-ka. Muuqaalkaasi ayaa waxaan u sameyn waayay thumbnail sababtoo ah waxaa loo baahan yahay inaad verify gareyso lambarkaaga marka aad ku isticmaalayso YouTube-ka. Sababtoo ah YouTube-ka marka aad ku isticmaalayso mobile iyo marka aad laptop ku isticmaalayso way kala duwan yihiin. Waxaan soo degsaday YouTube Studio kabacdi waxaan isku dayay inaan saaro thumbnail. Midaasina way ii suurtagali waysay. Si aan YouTube-kayga u verify gareeyo iyadoo tahay wax fudud hadda ay tahay maanta inay wax fudud leeyihiin ayaa waxay igu qaadatay muddo 3 cisho ah inaan YouTube-kayga verify gareeyo. Sababtoo ah wax walba markii ay kugu cusub yihiin ay dhib badan yihiin. Kabacdi alxamdulillah rabbil caalamiin waan verify gareeyay. Qof walba oo YouTube ku soo biiro muuqaaladiis ugu horeeyay ama 100 muuqaal ama 30 muuqaal ee ugu horeeyay waxay noqdaan kuwo aanan qarxin ama aanan noqonin siduu rabay. Haddii aad ka niyad jabto oo aad dhahdo muuqaaladii ugu horeeyay ee YouTube ka soo gelisay waxay noqdeen kuwo aanan faa'iido lahayn. Haddii aan soo qaadano kale 30kii muuqaal ee ugu horeeyay ee aan YouTube ka soo geliyay may noqonin sida aan rabay. Waxay noqdeen kuwo aanan ku tashan marnaba oo aan isdhahay YouTube-ka sanadan 2022 kadib ma sii wadi doontid. Haddaba maxaa shuruud ah oo loo baahan yahay inaad YouTube ka bilowdo? Shuruudda kaliya ee maanta ka hortaagan inaad YouTube ka bilowdo waa naftaada. Dadka inta badan ee maanta ku talagalay inay YouTube bilaabaan waxay leeyihiin ama waxay niyadooda ka dhaadhiciyaan inay bilaabaan berri ama maalin ku xigo ama maalin ku sii xigo. Haddii aad maanta haysato mobile iyo internet waxaad haysataa chance weyn. Sababtoo ah inta badan waxaan beer dareynaa waqtiyo aan macquul ahayn haddii loo fiiriyo maanta waqtiga aan haysano. Ku talagal in berri waqtigan uu ka dhamaan doono ama aad ba weynaan doonto duqoobi doonto. Sababtoo ah adduunku sidan uma sii soconayo oo waqtigu uu sii jarayaa maalinba maalinta ka dambayso waad sii duqoobaysaa ama da'daada way sii weynaanaysaa. Haddii aad maanta dhahdo berri ayaan bilaabayaa ma bilaabaysid berri oo maanta ayaad bilaabi kartaa maantadan bilaaw. Sirta kaliya ee aad ugu gudbi karto caqabadaasina waxay tahay in aad noqoto qof qalbiga ka jecel in uu maanta wax qabsado. Haddii aad maanta dhahdo maantadan ayaan qabanayaa qabo oo isku day xitaa haddii aadan qabanin wax yar ka qabo si aad u dhameysato berri. Muuqaalada aan edit gareeyo inta badan hal maalin kuma edit gareeyo ee waxaan ku edit gareeyaa muuqaalada 3 maalin ilaa 2 maalin ayaan ku edit gareeyaa. Adigana midaasi waad isticmaali kartaa. Midda kale ee aan ku sheegayo waxay tahay in aad diyaarsato mowduuc. Haddii aad bilaa mowduuc YouTube-ka ku soo biirto ama bilaa hadaf ma ku noqonaysid mid ku waaray. Haddii aad lacala ka hadasho dhanka tech ama technology haddii aad ku fiican tahay technology ka soo hadal. Haddii aad dhanka ciyaaraha ku fiican tahay ciyaaraha ka soo hadal. Haddii aad dhanka wararka ku fiican tahay wararka ku soo hadal. Haddii aad tahay qof cod macaan oo dhanka qisooyinka ka hadli karna ka soo hadal qisooyinka maantadana bilow oo fadhiga ka kac. Haddaba haddii aan hal fikrad ku siiyo ama aan ka dhaadhiciyo hal fikrad oo maanta aad YouTube-ka ku bilaabi karto haddii aad tahay qof jecel wax walba oo aad maanta rabto inaad bilowdo ama aad hami u leedahay waa inaad marka hore ka go'naansho waa inay ka timaadaa qalbiga waa inaad ka go'naansho ka keentaa. Sababtoo ah wax aanan qalbigaaga ka go'nayn haddii aad samayso ma sii wadi kartid. Haddaba marka hore waa inaad samaysataa magac kuu gaar ah iyo astaan kuu gaar ah. Astaan markii aan ku leeyahay waa logo. Waa inaad samaysataa astaan kuu gaar ah, magac kuu gaar ah iyo wax kuu gooni ah oo aad ka soo hadasho. Haddii aad maalin ka soo hadasho sportiga, haddii aad maalin ka soo hadasho qishooyinka, haddii aad maalin ka soo hadasho filimada oo la turjumo ama khulaasada filimada, mowduucaada ma noqonayo mid waaro ama mid aad ku sii socoto. Balse waxaa muhiim ah inaad hal wax diiradda saarto. Haddii aad halkaa wax diiradda saartana waxaan si 100% kuugu hubaa in aad ka miro dhalin doonto. Hal wax iska hagaaji oo iska habay muuqaaladaada. Haddii ay muuqaaladaadu yihiin kuwo aanan faa'iido lahayn sababtoo ah waxaa jira mowduucyo muhiim ah oo ka soo hadlayso
balse qaab editkaaga ayaa ahayn mid wanaagsan. haddii uu qaab editkaaga ahayn mid wanaagsan, muuqaaladaada ma yeelanayaan xiiso, sababtoo ah dadku waxay jecel yihiin inay wax fiican helaan ama muuqaal ay naftooda ku cajabiso ama qaab editkiisa iyo waqtiga ku baxay uu waqti dheer noqdo. dadku way ku raaxaysanayaan muuqaaladaada oo watch time hours-kana waad buuxinaysaa. balse haddii aad muuqaaladaada ka dhigto kuwo aanan wax edit lahayn, dadkuna ma xiiseynayaan, sababtoo ah dadku waxay jecel yihiin waxay cusub caalamka jecel waxay loo dhahay ayaa ka jira. sababtoo ah dadku waxay jecel yihiin muuqaalo edit garaysan, muuqaalo habaysan, muuqaalo ay naftooda ku qancayso. ama hal waxna waan kaa waaninayaa inta aad YouTube ku guda jirto. haddii aad tahay qof jecel inuu soo jarjaro muuqaalo ay dad leeyihiin, fadlan iska ilaali, sababtoo ah YouTube-ta shuruucdii hore ee u degsanaa wuu bedelay. maanta haddii aad hal muuqaal uu qof kale leeyahay soo jarto ood bartaada YouTube-ka soo dhigto, waxaa ku garab taagan copyright-ku haddii mar lagu saaro muuqaalka lacag kama samaynaysid, xiise kuma yeelanayo, naftaada mana qancayso, sababtoo ah wax aad ku daashay oo soo jarjartay oo soo edit garaysay haddii aad wax faa'iidaha ka samaynin, muuqaalka muxuu adigu kuu tari? waxba kuma tarayay, qofkii kale ee lahaa unbaad xayeysiin u samaysay. waxaan kugu waaninayaa in aad wax adiga leedahay la timaado. goobtan YouTube-ka waa garoon weyn oo dad badan iskugu yimaadeen, qof walbana xirfadiisa ayuu ku joogaa. waxaan kaa codsanayaa fadlan, haddii aad tahay qof soo jarjara muuqaalada ay dadka leeyihiin, iska daa, sababtoo ah muuqaal uu qof leeyahay haddii aad maanta soo jarto oo aad beri soo jarto oo aad beri dambe soo jarto, waad ku daalaysaa, wax faa'iidana kama samaynaysid. goobtan YouTube-ka ee laiskugu yimaadayna waxaad ka noqonaysaa mid fashilmay.